Laba nin oo wada jooga ayaa mid walba qadadiisii la soo baxay. Midi wuxuu haystay 5 xabo oo muufa ah, kan kalena 3 xabo oo muufa ah. Markay qadadii u fariisteen oo ay bilaabi rabaan inay cunaan ayaa nin socdaal ahi soo maray. Waxay ku dhaheen, soo fariiso oo nala cuntee. Wuu fariistay, 5tii iyo 3dii muufa intay isku darsadeen ayay 3doodii wada cuneen. Markay dhammaysteen ayaa ninkii socotada ahaa istaagay si uu socodkiisii u sii wato. Asaga oo sii baxaya ayuu lacag 8 dirham inta uu xaggooda u soo tuuray ku yiri, lacagtaas qaata. Labadii nin dhexdooda muran ayaa ka bilowday oo lacagtii ayay isku qabsadeen. Mid walba wuxuu yiri, anigu muufada 5 xaba ayaan lahaa, sidaa darteed 5 dirham ayaan yeelanayaa. Kii kalena wuxuu yiri, ninku lacagta wuuna wada siiyey ee dhexda noogu dhufo, yacni 4 iyo 4. Ayaga oo ishaystaa ayay isula tageen Cali bin Abi Talib, Allaha ka raali noqdee, waxayna ku dhaheen, Caliyow sidaas baa dhacdaye, na kala saar. Cali radiyallahu canhu wuxuu ahaa dadka xisaabta khatarta ku ah. Ninkii 3 muufa lahaa ayuu ku yiri, nin yahow maad 3daada dirham ee ninku kuu ogol yahay hadda iska qaadatid. Haddii la xisaabtamo intaas ka yar baad yeelanaysaaye. Ninkii wuxuu ku jawaabay, waan ogolahaye igu qanci horta sida aan ku yeelanayo. Cali wuxuu yiri, idinka oo 3 nin ah waxaad wada cunteen 8 xabo oo muufa ah. Xaqiiqa ahaan lama yaqaano nin walba inta uu ka cunay, sidaa darteed waxaan ka soo qaadaynaa inaad si siman u wada cunteen oo ninna ninka kale ka badsan. Xabad kasta oo muufa ah waxaad ka dhigtaa 3 jab ama cad oo ninkiiba jab cunay. Waxaan haysanaa hadda 24 jab, yacni 8dii muufo oo min 3 xaba jab lagu dhuftay waxay noqonaysaa 24 jab. Nin kasta wuxuu cunay 8 jab. Ninka 5 xaba ee muufada lahaa wuxuu yeelanayaa 15 jab, yacni 5tiisii muufo oo lagu dhuftay min 3 waxay noqonaysaa 15 jab. Wuxuuna cunay 8 jab, waxaa u soo hartay 7 jab. Adiga oo 3 xaba lahaana waxaad yeelanaysaa 9 jab. 3daadii muufo oo lagu dhuftay 3 jab waxay isu tegaysaa 9 jab. Waxaana cuntay 8 jab, waxaana kuu soo haray 1 jab. Daba ninka Islaameed ee socotada ahaa wuxuu cunay 7 jab oo ninkii 5 xaba lahaa leeyahay iyo 1 jab oo aad adigu leedahay. Sidaa darteed 8 dirham waxaad ku leedahay 1 dirham, maadaama 1 jab oo keliya laga cunay. Ninkii murmaya halkiisii dirham ayuu qaatay, wuuna iska tegay. Haddaba saaxiibayaal, waxaan filaya